haddaba fanaaniinta Soomaaliyeed ayaa iyagu sida mujtamaca ama bulshada caadiga ah waxaa saameyn ku yeelanaysay sida ay mujtamacyada kale iyo bulshadaba iyagu nool yihiin. Fanaaniinta ayaa iyagu isku qaadaya jacayl iyo weliba gacaltooyo kuwaasoo ahaa kuwa ay ka dhashaan awlaad jacayl dhalay. Hablaha fanaaniinta ayaa iyagu u badnaa inay jacayl u qaadaan ragga fanaaniinta ah, inkastoo ragga fanaaniinta aysan aad iyo aad ugu badnaynin inay dumarka fanaaniinta ay jeclaadaan ama ay guursadaanba. Haddana way dhacaysay in fanaaniin ay iyagu jeclaadeen fanaaniin kale oo habla ah oo ka mid ah hablihii fanka Soomaalida. Haddaba jacayladii fanaaniinta waxaa ka mid ah kii Axmed Cali Cigaal iyo Maryan Mursal Ciise, kii Maxamed Axmed Kuluc iyo Zahra Axmed Jaamac, kii Maxamed Cali Kaariye u qaaday Shankaroon Axmed Yuusuf Sagal, kii Bashiir Ibraahim Cabdi iyo Xaliimo Muuse Milano oo kale iyo kuwo kale oo badan. Haddaba maanta waxaynu soo qaadaynaa fanaanada weyn ee Saada Cali Warsame jacaylkii ay isu qaadeen fanaanka kale ee la holin waayay codka tulmoon lahaa ee Muuse Ismaaciil Qalinle. Haddaba sidee bay isku barteen Saada Cali iyo Qalinle? riwaayad uu sameeyay abwaanka weyn Allah u naxariistay Maxamed Ibraahim Hadraawi magacaabaya Tusmaya Tawaawac oo ay wadeen abwaaniintii iyo macallimiintii la foole ayaa iyadu waxaa jilaa ka ahaa fanaanka weyn ee Muuse Ismaaciil Qalinle, iyadoo agtaradan ay ahayd fanaanada weyn ee Canab Diiriye. Canab ayaa iyadu waxaa isaga baxday qaybteedii halkaasoo banaanaatay Ustaad Saciid Saalax Axmed oo ka mid ahaa dadkii wadi riwaayadaasi qaybna ka ahaa ayaa isagu wuxuu doonayay qof u bedesha booskaasi ay ka baxday Canab. Ustaadka weyn ee Saciid Saalax Axmed oo isaga doonayay fanaanada u bedesha Canab ayaa isagu maalin wuxuu u soo galay xaafada Debka hoostiisa degmada Hodan fanaaniin iyo ku halkaasi fadhiday. Fanaaniinta halkaasi fadhiday waxaa dhex joogta gabadh iyadu heesaysay oo kaban u tumayay musiishanadii halkaasi fadhiyay mid ka mid ah. Abwaanka weyn Saciid Saalax Axmed kolkii uu dhageystay fanaanada sidii u heesayso iyo sida ay u jilayso erayadan ay ula socoto hadba dhinac isu jeedinayso ayuu ka helay, wuxuuna codsaday inay doonaysay in kale inay buuxiso booskaasi riwaayad lagu magacaabo Tusmaya Tawaawacna ay wadaan. Macalinka ayaa isagu ballamiyay kadibna geeyay foole halkaasoo ay kula kulantay fanaankii weynaa Muuse Ismaaciil Qalinle. haddaba riwaayadii ayay isla xifdiyeen Tusmaya Tawaawac, laakiin riwaayadii maysan hirgelin sababtoo ah kooxdii kontaroolka ee dawladda ayaa ku dhigtay, iyadoo abwaankii sameeyana xabsiga loo dhaadhiciyay halkaasoo qansax dheere lagu xiray. riwaayadiina halkaas ay ku istaagtay. Isla fahankii iyo isbarashadii Muuse Ismaaciil Qalinle iyo Saada Cali halkaas kuma dhamaanin. abwaankii weynaa Xasan Qowdhan ayaa isagu riwaayad uu sameeyay labadooda uu u wada dhiibay, halkaasoo agtarad ay ka ahayd Saada Cali Warsame, Muuse Ismaaciilna uu ka ahaa. jacaylkii ay isu qabeen halkaas ayuu qalam jalamta iyo jacaylka ay isu qaadeen ka bilaabmay fanaanka weyn Muuse Ismaaciil Qalinle iyo Saada Cali. Saada Cali iyadoo la hadlaysa Muuse Ismaaciil Qalinle jacaylkana u sheeganaysa waxa ay ku tiri jacaylkii ayaa hirgalay halkaasoo Muuse Ismaaciil uu aad iyo aad u jeclaaday fanaanada jooga iyo jamaalka ee basiiyay quruxdana uu ku maneystay. jacaylkaasi biyo kama dhibcaanka oo uu qaaday fanaanka weyn Muuse Ismaaciil Qalinle. Saada Cali wuxuu ahaa mid caan ka ahaa fanaaniinta dhexdeeda iyo geyga Soomaaliyeed dadkii fanka intaba la socday.
haddaba sidii ay tahayba fanaanka waa uu guursaday fanaanada weyn ee Saada Cali halkaasoo ay qiso la yaab leh ka dhacday guurkii labadaasi fanaan ma noqon mid daahay labadaasi fanaan ayaa dadku waxay leeyihiin fanka Soomaaliyeed u indha daloola waa ay ku degdegeen guurkooda waxaana la doonayay inay waqti badan isla qaataan banaanka si dabeecadooda iyo weliba hab dhaqanka ay isu fahmaan Muuse Ismaaciil Qalinle iyo Saada Cali ayaa iyagu waxa uu jaceylkooda noqday mid aan zaid u daahin sababtoo ah dabeecadaha iyo weliba dhaqanka ayaa iskeeni waayay halkaasoo Muuse Ismaaciil Qalinle oo isagu go'aan ku gaadhay inuu jaceylka halkaasi ku joojiyo fanaanada Saada Cali oo iyaga naqatay xidig caan baxday oo kamid ah fanaaniinta Soomaaliyeed kuwooda ugu caansan hormuudkana ayaa iyagu halkaasi fanka ka sii wadatay u naxariistay Saada Cali ayaa waxay naqatay xidig bulshada Soomaaliyeed ka dhex tilmaaman fanaanad tulmoon oo cod dahabi leh ayay ahayd haddaba jaceylkii Muuse Ismaaciil Qalinle iyo Saada Cali oo isaga muddo badan aan daahin ayaa waxa uu sababsaday sida ay leeyihiin dadka fanka Soomaaliyeed iyo ku indheeya in dabeecadda iyo iskeeni weysay iyo hab dhaqanka labada fanaan intaba haddaba fanaanka ayaa isagu markii uu jaceylkii Saada Cali uu fahmi waayay wuxuu qaaday hees uu naftiisa kula hadlayo isagoo leh waan ku warramaya hawaaban maayi naftayda waan ku warramaya hawaaban maayi naftayda ma ogtahay wixii tegey iyo ruux wadkii dilay way soo macelisay wakiyo talaabada waaniga waqtanaye anigoo werwereyaan xalay waa bariiste waqalkiyo daruuraha layga wacay dushoode iyo wixii cadday xidhado hormalayla dhacaya weligiin liitiya jacaylkoo wadiica talaadihiisa weyda waxyeelaha ku gaadhe adoo igu werwereeyaan arrinkii wareejey haddii wercadlay xidhay waa niniyo waagii noloyaha wax garaado aya jooga waaye jacayl weli ma leeyahay waan wahaan ma leeyahay waanada maqaataha ma wanaajiyaa ruux waxaan ahay wadeeco waxyeelaa igaadhay haddaba jaceylka Saada Cali iyo Qalinle sidaas uma daahin sida fanaaniinta kale jaceylkooda oo kale si kastaba ha ahaatee adigu qisada jaceyl ee fanaanka Muuse Ismaaciil Qalinle iyo Saada Cali sidee buu ku soo gaaray sidee baad u maqashay nolosha inagala qayb qaado qaybta hoose fikradaadana inoo soo gudbi dib dambe intaanu u kulmi doono barnaamij caynkan oo kala ah nabaadiina nooli kulante iyo amaana Allah